munaasabadan oo ahayd mid ballaaran isla markaasina hanaanka dadhicita si weyn isugu soo dabariday isla markaasina ujeedadeedu ahayd xafladda qaranjabinta dufcadda toddobaad ee markaasi baratay culumta saxaafadda isla markaasina ka qaranjabinayay macadka Sow Community College. munaasabadan ayaa ahayd mid ka dhacday hoteelka Haldor isla markaasina kulmisay maamulka gobolka Awdal, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorame, guddoonka waxbarashada ee gobolka Awdal, salaadiin, waxgarad, wariyayaal iyo sidoo kale ardayda macadkaas ka qaranjabinayay oo tiradoodu dhan 23 arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdhaba. saad ogsoontihiin mudanayaal, Sow Community College ama kulliyadan saxaafadda waxaa la aasaasay 2009 wuxuu si rasmi ah u furmay 2010 waa college kaliya ama waa xarunta kaliya saxaafadeed ee gobolka soo saarta warbaahin lagu kalsoonaan karo. xilli wuxuu gobolka soo maray saxaafadiisu ay dulsaar ahayd halka imika isku maandhaafsan yihiin suxufiyiinta iyo dadka iyo maamulkii dawladdu, taasoo baahan in isfaham fara badan laga dhex abuuro. qofku wariyo xorriyadu haysto macnaheedu ma aha inuu bad kasta galayo, laakiin wuxuu leeyahay xuduud gaar ah oo cayiman inaanu mataqaanaa xadgudubyada la soo baray iyo dambiyada loo soo sheegay inaanu dhexgelin, laakiin wixii haddana waajibaadkiisa uu guto aw mataqaanaa aw intaas apply gareeyo. waxaa kaloo aad u hambaliyaynayaa iskuulka ama maxadka Sow Community College oo ah maxadka keliya soo saara ka gobol ahaan qolada mihnada saxaafadda. aad baan uga mahadcelinayaa Maxamed iyo Ibrahim iyo tiimka macallimiinta waa baahi jirtay oo dhammaystiran. aad baad ugu mahadsantihiin baan leeyahay dadku soo biiraya maanta ee aanu hambalyeynayno ee noo gogol fadhino farxadooda aan kala qayb galayno. ilaahay xaqa in garansiiyo qaabka wanaagsanna ugu heeliya bulshadiina markay noqoto kala qoqobnaanta iyo foolxumada dhaataala wadanka iyo geeyiga Soomaaliyeed maanta waxaanu leenahay in badan ka digtoonaada waa dardaaran weeyi. marka waxaan aaminsanahay saxaafadda gobolka Awdal waa meesha kaliya ee isha kaliya ka soo burqato inuu suxufi soo saarto, ayna jirin meel kale oo waxbarasho ah oo saxaafadeed inuu ku yarnahay. marka maanta lixda soo baxay aad baan u hambalyeynaya, waayo maxayada waa profession maxayada khaas oo ka soo qayb galeen. marka waa wixii runta ahaa ee layniga baahnaa waa la wada sheegay. waxaas wuxuu yahay waxa dariiqa saxda ah ee journalism ama maxayada suxufi inaad qaadaan, waa inaad dhacdo kasta sida u dhacday aad u sheegtaan. midida labada arday ama aday ku goyn ama qof kale goynaysa waxaana loo baahan yahay in runta laga sheego. marka saxaafadda waxay ku caan tahay ama suxufigu ku sax yahay inuu wuxuu arko runta ka sheego. haddii runta laga sheegi waayo waxay noqonaysaa wax qoraa ama wax la bartay. taasi kadib waxaa halkaasi abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey 23 arday ee bartay culumta saxaafadda isla markaasina ka qaranjabinayay Sow Community College ahaana dufcaddii toddobaad. macadkan ayaa waxa uu yahay macadka kaliya ee wakhtigan lagu barto culumta saxaafadda ee ku yaala gudaha magaalada Boorama, taasi oo ay ka aflaxeen arday tiro badan oo markaasi wax ka bedelay dhanka saxaafadda ee gobolka Awdal. maxamed xasan Ismaashir Bere, magaalada Boorama.